maxaad ka taqaanaa afartan nooc ee aad caadaysatay ee sababi kara in ay kugu dhacdo cudurka loo yaqaano kansarka? kow waxaa ka mid ah cabidda shaaha kulul iyo cuntooyinka kulul. khubaro dhanka kansarka ee ka soo jeeda dalka Mareykanka waxa ay sheegeen in cunidda raashinka kulul iyo cabidda shaaha kulul ay sababi karto kansarka ku dhaca hunguriga iyo dhanxanaga. sidaa darteed waxay ku baaqayaan ururkan in aan la isticmaalin shaaha kulul iyo in aan la cunin cuntooyinka kulul heerkulkooduna uu ka hooseeyo 60 darajo boqolkiiba. labo waxaa ka mid ah cabidda qaxwada subaxii. ururadan waxa ay sheegeen in cabidda qaxwada hal koob ama 2 koob ay sababi karto in uu durbaba kugu dhaco cudurka kansarka, taas oo ay ku macneeyeen in ay leedahay qaxwadu dhiig yari iyo waliba in ay cudurku si habsami leh kugu soo abaaro. saddex cunidda hilibka maalinlaha. ururkan waxay sheegeen cunidda hilibka maalinlaha ee gaarka hilibka markaas warshadaysan isna sababi karo in uu cudurka kansarka kugu dhaco. baaritaano ay sameeyeen dad si gaar ah loo socdeen ku dhawaad 1.2 milyan qof ay markaa ku ogaadeen in ay waxaas sababi karaan. qodobka afraad waxa weeyaan in aad xili dambe shaqayso, in aad habeenkii soo jeedo ama aad dhafarto. waxay khubradani ku sheegeen in uu kugu dhici karo cudurka kansarka, kaasi oo ay u soo qaateen waxaa yaraanaya hormoon loo yaqaano melatonin ee ku jira jirkaaga, kaasi oo kusoo haddii uu ka baxo halkaa kusoo weerari kara cudurro badan oo markaasina ugu dambeyn cudurkaasi kansarka uu ku haleeli karo. weli waxa ay ku tilmaameen khubradu inuu yahay kansarka ku dhaca naaska. haddii haddaba uu ku qanciyo muuqaalkan daawade, fadlan like saar, subscribe leh. halkan waa Midnimo Media.